asalaamu calaykum ku soo dhowow muuqaal cusub oo xiiso badan nagu soo biir oo sabskraib saar kanaalka muuqaalkani laag gare. Muuqaalkan maanta waxaan ku soo qaadan doonaa laba qiso oo cajiib ah oo leh ibro qaadasho qoto dheer. Qisada koowaad waxay ka hadlaysaa wiil xanaaq badan iyo musmaaro, halka qisada labaad ay ka hadlayso nin iyo aabbihii gaboobay oo ku dhowaa in loo diro guriga waayeelka. Labadan qiso waxay kuu muujinayaan laba xaqiiqo oo muhiim ah: sida loo xakameeyo xanaaqa iyo sida loo qiimeeyo waalidka. Haddaba aynu bilaabno qisada koowaad. Qisada koowaad: wiilka iyo musmaarada. Waxaa la sheegaa in tuulo yar uu ku noolaa wiil aad u xanaaq badan. Dadka tuulada oo dhan ayaa ogaa dabeecaddiisa. Wuxuu si fudud ugu xanaaqi jiray dadka kale, mararka qaarna xanaaqiisa ayaa u horseedi jiray muran iyo dhibaatooyin. Aabbihii oo arkay dhibaatada uu xanaaqaasi ku hayo wiilkiisa ayaa go'aansaday inuu baro cashar muhiim ah oo noloshiisa wax ka beddela. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu aabbihii u keenay bac weyn oo ay ka buuxaan musmaaro, wuxuuna u tilmaamay dayrka alwaaxda ee beerta guriga. Aabbihii wuxuu ku yidhi, wiilkaygiiyow, mar kasta oo aad xanaaqdo ama aad dareento inaad qof ku qaylinayso ama aad muran gasho, waxaan rabaa inaad musmaar ku garaacdo dayrkan alwaaxda ah. Wiilkii wuu la yaabay. Ma fahmin sababta uu aabbihii uga codsaday arrin sidaas oo kale ah. Laakiin ugu dambayn wuu oggolaaday, isagoo go'aansaday inuu fuliyo amarka aabbihii. Maalintii ugu horraysay, wiilku wuxuu ku garaacay dayrka 37 musmaar. Taas macnaheedu wuxuu ahaa inuu maalintaas 37 jeer xanaaqay. Kadib maalmo yar, wiilku wuxuu ogaaday in garaacista musmaarada aysan ahayn hawl fudud. Mar kasta oo uu xanaaqo, wuxuu ku qasbanaa inuu musmaar qaato oo dayrka ku garaaco. Arrintaas ayaa ku kaliftay inuu bilaabo isku dayga inuu xanaaqa xakameeyo. Maalmo ayaa dhaafay. Tirada musmaarada uu garaacayo maalinba maalinta ka dambaysa way yaraatay. Ugu dambayn waxaa timid maalin uusan wiilku hal musmaar toona ku garaacin dayrka. Wiilkii aad buu ugu farxay guushaas. Wuxuu orday si uu aabbihii ugu sheego. Aabbihii wuu ku farxay, laakiin wuxuu ku yidhi, wiilkaygiiyow, hadda waxaan rabaa inaad maalin kasta hal musmaar ka bixiso dayrka, maalinta aad xanaaqin. Wiilkii wuu aqbalay. Maalin kasta oo uu xasiloonaado, wuxuu dayrka ka bixin jiray hal musmaar. Muddo kadib, ugu dambayn dhammaan musmaaradii wuu ka bixiyey dayrka. Wuxuu u tegay aabbihii si uu ugu sheego inuu hawshii dhammeeyey. Aabbihii wuxuu gacanta ka qabtay wiilkiisa wuxuuna geeyey dayrka. Kadib wuxuu ku yidhi, wiilkaygiiyow, eeg dayrkan. Musmaaradii waa la saaray, laakiin godadkii ay ka tageen weli way muuqdaan. Wiilkii wuxuu yidhi, haa aabbo, godadkii weli way jiraan. Aabbihii wuxuu markaas yidhi, sidaas oo kale ayay ereyada xanaaqa iyo hadallada adag qalbiyada dadka kale ugu reebaan raad. Xitaa haddii aad raalli geliso, mararka qaar raadkii dhaawaca ma bo'o. Wiilkii maalintaas wuxuu bartay cashar weyn oo ah xakamaynta xanaaqa iyo qiimaha ereyada wanaagsan. Qisada labaad: casharka waalidka. Waxaa jiray nin go'aansaday inuu aabbihii oo gaboobay geeyo guri lagu daryeelo waayeelka. Sababta ugu weyn waxay ahayd in xaaskiisu mar walba ka cabanaysay aabbaha. Waxay ka sheegan jirtay inuu mararka qaar wax iloobo, inuu u baahan yahay daryeel badan, iyo inay ka xishooto xaaladaha qaarkood ee uu ku keeno saaxiibadeeda hortooda. Ugu dambayn, ninkii wuu ka daalay cabashada joogtada ah ee xaaskiisa. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu go'aansaday inuu aabbihii geeyo guriga waayeelka. Isagoo qalbigiisu murugaysan yahay ayuu bilaabay inuu ururiyo alaabtii aabbihii. Wuxuu bac ku riday daar, cunto, iyo gogol yar oo uu ku seexdo. Kadib wuxuu gacanta ka qabtay aabbihii si ay ugu socdaan guriga waayeelka. Laakiin intay socdeen, wiilkiisa yar ayaa ku yidhi, aabbo, fadlan isii qayb ka mid ah gogosha aad wadato. Ninkii wuu la yaabay. Wuxuu ku yidhi isagoo yaabaan, maxaad ku samaynaysaa qaybta gogosha? Wiilkii yaraa wuxuu si daacad ah ugu jawaabay, waxaan rabaa inaan ku kaydiyo qaybtan si aad ugu seexato marka aniga aan ku geeyo guriga waayeelka marka aad adigu gabowdo. Markuu hadalkaas maqlay, ninkii wuu naxay. Ilimo ayaa indhihiisa ka soo daadatay. Wuxuu xusuustay jacaylkii aabbihii, daryeelkii uu siiyey, iyo dhibkii uu u soo maray korintiisa.
Isla markiiba ayuu alaabtii dhulka ku tuuray. Wuxuu si adag u habsiiyey aabbihii. Kadibna wuxuu ku dhaartay Ilaah hortiisa iyo wiilkiisa hortiisa inaanan marnaba ka tegi doonin aabbahay oo aan anigu si toos ah u daryeeli doono inta uu nool yahay. Labadan qiso waxay ina barayaan 2 cashar oo waaweyn. Casharka koowaad: xanaaqa iyo hadalka adag waxay dhaawici karaan qalbiyada dadka. Casharka labaad: sida aad ula dhaqanto waalidka maanta, sidaas ayaa carruurtaadu berito kuula dhaqmi doonaan. Haddaba had iyo jeer xakamee xanaaqa. Hadalkaaga ka fiirso. waalidkana qiimee inta ay nool yihiin. Allah wuxuu quraankiisa ku yidhi: ima yablugana indaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffi walaa tanharhumaa waqul lahumaa qowlan kariimaa. haddii qisadan ay taabatay qalbigaaga, laag saar muuqaalka, komantigana inoogu reeb ra'yigaaga, lana wadaag saaxiibadaada si ay iyaguna uga faa'iidaystaan. mahadsanid daawade, tan iyo kulanti dambe oo xiiso leh. nabadgelyo.